dhintay ku shahiiday intii uunu dhimanin markuu sii socday wuxuu yidhi calankayga nuurow haddii aanan soo noqon allahayo ku nabad yeel sacbay mujaahidka u sacbay waxa weeyaan raggii sidaa u dhintay oo calanka u soo shahiiday ayaa dad aan soo shahiidin maanta siday doonaan ka yeelayaan lagama yeelayo no iminka waxaan u yeelayaa Ahmed Umar oo ku hadla magaca USB usnag oo annaga horta israacsanayna awdal USB na awdal state USB كمان awdal السلام عليكم دمانتين بأخيار الصوماليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار الصوماليات دمانتين بوارد السلامية انت كنت هوريسنا وحن حمدي ان اورت الهي نابوري اسو ادون كان نكاني بان هورت وحمدي الله انو نصورت جليي عاونا هلكن اسكو نمادنو الحمد لله رب العالمين انت كدن بيسا أنا وحن يبدو المري بل ونسحسوسيننا بل مدحوينها الصوماليات يبقى لما الصوماليات إن هبكا يكوي مادين ييني كدوين كوي هورن إيو وحا كهالوصن إيو وحا هاي قرب مري مركا وحن حسوسنا هاي إن برلماغ الصوماليات ما انت جوغا أي salaadiin ta ummadda Soomaaliyeed ayaga soo xuleen halka waxa ku cad codka ummadda Soomaaliyeed inay meesha ku tageen waxa xildhibaan meesha joogo dhamaad waxay garab mareen markaa xildhibaanada laftoodu amba guddoonka baarlamaanka laftiisu inuu dhowro codku meesha ku tagay ummadda codkeega inuu dhowro qiimaheega inuu dhowro sharafteeda inuu dhowro nidaamkooga inuu dhowro wanaagooga inuu dhowro Soomaalinimadooda iyo wadanimadooda inuu dhowro waxaad moodaa in laga dulmiyo markaa ummadda Soomaaliyeed oo iloobeen kuwa baarlamaanka saa waxa cadeynaya qarannimadii Soomaaliyeed ee Turkiga lagu burburiyay kolkii la iskugu yimiday maamul sheeganaya Somaliland wax la yiraahdo oo Ingiriis raacay oo waa horaba laga tagay iyo qarannimada Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed ay ku kulmeen waxaad moodaa inay burburisay qarannimada Soomaaliyeed inay kala goysay xildhibaanada ka damqanaya qarannimada Soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed mooshinkay keeneen waxa tuuray guddoonka baarlamaanka guddoon mooshinna waxa tuuri kara xildhibaanada tuuri kara marka waa loo codayn karaa codku dhinacu batuuri hore laakiin guddoonku xaq uma inuu ummad codkeega ku tunto xildhibaan ummad codkeega sida oo ummad Soomaaliyeed codkooga sida in codkiisa la tuuraa uu guddoonku diiday uu sharci darro ku diiday waa qalad weyn marka baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddaad Soomaalitiin oo xasuusantiin cidii meesha ay keentay iyo waxaad ku fadhidaan iyo sharafta Soomaaliyeed inaad qadarisaan codkii ummadda Soomaaliyeed meedaheeda keen qarannimada Soomaaliyeed inaad qadarisaan madaxweynaha waxaan leeyahay isaga adiga codka ummadda Soomaaliyeed baa meesha ku keenay xildhibaanadaas ku doortay qarannimo Soomaaliyeed baa lagu dhiibay inaad qarannimo Soomaaliyeed daryeesho ummad Soomaaliyeed oo 20 sano dhibaato ku jirtay inaad daweyso oo iyaga isku keentaan lagu gudi sharcigooda iyo dastuurkooda inaad ilaaliso inaad walaalnimadooda ka shaqeyso in aad wacyigelin ku samayso ummadda Soomaaliyeed oo dastuurkooda u akhrido oo ku wacyigeliso meesha aad wado oo iyaga ka qanciso baa lagu xilsaaro lagu dhiib
in ad beelaha isdiidana Soomaaliyeed iyaga dhexdooda maslaxayso oo maslaxa iyo wanaag iyo maxabba iyo kalgacal dhex dhigto oo wada jirkooda iyo wada dhalashadoodii ka shaqayso baa lagu xilsaan oo mas'uuliyadeeda lagu dhiib inaad ilaaliso ummadda Soomaaliyeed waa ka sugaysa waa tagarma waxa kale oo ilowday in aad tixgeliso rabitaan shacab goboleed amba gobol ha doono ama mid dalba ha noqotay inaad rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyadana garab marto waxay ka mudan tahay ummadda Soomaaliyeed inaad tixgeliso oo dhowrto rabitaankooda iyo wanaagooda iyo quruxdooda iyo waxa ay rabaan inaad hormariso haddaan intaa dhaafo waxaan u gudbiyay anigu goboladan ka imid gobolka Awdal amba Sool iyo Sanaag goboladan ka imiday waa gobollo Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed lagu dhiibay iyo mas'uuliyadda lagu dhiibay waxa ay 18 gobol in aad tiraahdo Sool wax la yiraahdo ma jiro oo ka inkirto amba Sanaag wax la yiraahdo ma jiro Awdal meel la yiraahdo ma jiro oo ka inkirto dadnimadooda iyo qarannimadooda iyo wadaniyadooda iyo codkooda iyo sharaftooda inaad ka aasto oo u dhiibto qabiil kamid ah qabiilada dega gobolada waqooyi oo tiraahdo iyaga idin leh weeyaan macnaheedu iyaga daba fadhiisanaysa dhulkana iyaga waa waxan jirin dhulka ummadda degan baale oo Soomaalinimo leh ummadda gobolada ku nool baale waa dambi aad ka gashay ummadda Soomaaliyeed ee waqooyiga degan mana iloobayno waxaanu ku qoraynaa arrinkaasi duwaanka ummadda Soomaaliyeed baan ku qoraynaa waa taariikh ku galayso ummadda gobolada ka soo jeedo waa ummadii suurta gelisay inay Soomaali wada jirto ee 60kii keentay calanka buluuga xamarkan ee sababtay inaad qurux Soomaaliyeed ku dhalato kuna waxna ku barato aqoonna ku yeelato darajada aad maanta timidna waxa suurta geliyay gobolada USB dadka ka yimid baa soo waxay ka mudayn dadkaas in aad taariikhdooda qirto oo waliba baal dahaba siiso oo iyaga u mahadno shalay waxa ku hagayay dadka garaadada ka yimiday Sool baa ku hagay waxa ku hagayay suldaanka iyaga ugu daaweyn ee ka yimiday Sanaag waxaad ugu abaal guday ma jirtaan inaad tiraahdo marka kaama isdaalaan iyaguna kuwaas marka waxaan ku soo gabagabeyn lahaa haddii aydan garanaynin dadnimada Soomaaliyeed iyo meesha aad u socotaan ummadda Soomaaliyeed inaad u dhaaftaan meesha waayo Soomaalinimadu waa jiraysaa waana noolaanaysaa waana soo noqonaysaa laakiin ninka wajigana noogeen qalbigana wax kala ka mar rabno waa inuu marka waxaan idinkaga tegayaa in aad fikirtaan oo u noqotaan wixii ummaddu idin dhiibatay waxaad qalad gasheen inaad saxdaan haddaad si xuwiidan waad iska dhaafisaan meesha. Assalaamu calaykum.